mahadsanid khadro daawadayaal barnaamijkeena tabiyaha TV-ga dowladda Puntland toddobaadkan degmada Burjile waxaanu ku soo qaadan doonaa xaaladaha abaaraha deegaamada hoos yimaada degmada Burjile iyo waliba mid ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada oo ay ka dhacday dhacdo kaliftay inay dhaafaan xoolo badan guud ahaan xoolo dhaqatada ku nool deegaamada miyiga waxaa soo wajahay xaalado culus oo ay sababtay saameynta abaaraha si gaar ah deegaanka godobyar ee degmada Burjile ay ku dhaqan yihiin dad xoolo dhaqata isla markaana aan roob helin labadii sano ee la soo dhaafay dadka iyo xooluhuna la daala dhacayaan biyo la'aan iyo baad la'aan ayaa waxaa ku soo kordhay dhacdo xanuun badan oo ay muddo kooban xoolihii ku waayeen qoysaska halkaasi ku dhaqnaa in ka badan 500 oo neef oo ari ayaa muddo 5 bariya kaga baqtiyay dadkan halka intii hartayna aysan kor u kicin ilaa haatan oo xanuun la ildaran yihiin hareeraha tuuladan godobyar waxaa fidrisan baqtiga ariga ilaa haatan ma cadda sababta ama xanuunka laayay xoolaha faraha badan balse mas'uuliyiinta wasaaradda xanaanada xoolaha degmada Burjile waxa ay noo sheegeen in la baari doono dhiigga xoolaha tirada qoysaska ku xoolo waayay deegaanka godobyar ee degmada Burjile ayaa kor u dhaafaya 10 ilaa 15 qoys oo halkaasi ku cayroobay hooyo dahaba oo kamid ah qoysaska halkaas ku xoolo waayay waxa ay haysataa carruur agoon oo ay ka korin jirtay tiro ari ama 100 neef oo ari ugu xareysnaa deegaanka maantana waxa ay noo sheegtay inaysan neef uga erkanayn xoolaheedii oo ay ka wada baaba'een anigu waxaan haystay reer yaal xuma agoona waxaan haystaa ari xoogaado tiro ah arigaasaan yacni wax kasta wixii qutulyoona kala bixi jirnay waxaan gadano iyo wixii aan qalanno iyo wax kastaba iyo wax biyo aan kala baxnaba arigaas adeega noo ahaa arigii waa coos waayay waa naq waayay abaaraa dhacay magaalada yata 2 sano roob ma qaban abaar siyaada bay lahayd ilaahay qadar waxaan aragnay barkaan waxaan aragnay arigiyo wada leh yaa ariga taahay ha arigiyo taahay walaariga maxaa ku dhaxdhacay walaariga maxaa toosaskayga qaadanay wariga waa fiirinay ariga neeftuba kor wada raacaya afkuba kala haya saas madaxa kor ugu taagaya ariga waag dadkiiba sidoo dadkii meel kala aragna toosasiya waxa la dhoobay war maxaa dhacay reeriba ayaguna u tagna war maxaa in haya war ariga waa kare arka wariyaha arka wasaariga dahab ariga saan makaaya waa igaya ariga intii ka dambeysay ariga laba habeen ariga tirada ahaa 60 baa nafta weyday 40 ka arigaagu tiro ahaa 60 baqtida laba habeen bay baqtay laba habeen bay u qaybsanta 40 harayna wuxuu ku nool yahay waxaan ku xisaabtamayo male adaga asaga ahayna ma haysan ma la brain kara marka ma lamana baraysan anoo dul taagan orgidi jarka ahayo inaan gatarabay riyihii inaan gatarabay ariga inaan maala rabay anoo hortayda taagtaagan boodal baqbaqtii sidii baana baahi ugu baqteena meelaha lagu gubay hadda waxa meelaha lagu gubay way arigi meel u sandaadsanayn male hadda inta joogta waxaan raasay timir waxaan raasay caano boore waxaan raasay abawalad inta waa isku qas waxaan soo ariga sunta ka dig sidii al daawo uga dhigin kiin hadda nool waxba kuma noola kan hadda dhintana dhimay dhibaataya jiilaa waa nooga tagayo saddexda habeen sidoo kale Cabdisamed Cali Cilmihi oo kamid ah dadka degan deegaanka godobyar ayaa waxa uu isaguna noo sheegay inay ka waxyeeloobeen ari tiradiisu kor dhaafayso 150 neef waxa baqtiyay qayb aan badnayn hameenkii labaadna qayb aan badnayn baa baqtiday hameenkii saddexaad buu kulliga wada baqtiyay 100 baa isku mar eedaantay anigu waxaan durtay ari 150 ku dhow oo arigayguba intaa uu ahaa hal neef kama aan siidayn daawo wax ku oqlaba ku timid baan maaragtay maskaxdayda geliyay kulli arigii waan wada duray isku mar buu eedaamay haddana waxba kama noola waxaan ka warhayaa dad kale oo ila degdeganaa ama iga ari yaraa ama ariyahooda qaar duray ama wada duray in ay kulligood noqdeen wixii dhintay maadaama hadda laga joogo waqtigii 5 maalmood iyo waxaan wiig dhammayn wax baqtiyey iyo wax buka oo sakaraad oo aan daaqaynin in ay xoolihii wada noqdeen daawadaasi martay oo tiinkaasi aa fariisa saaray marka maadaama sidaasi dhacday oo masiibadaasi xoolihii ku dhacday waatahay Cabdisamed maxaad fariin oo u diraysaa dawladda Puntland iyo dadka muxsiniinta ee ku daawanaya waxaan soo jeedinayaa codsi aan ka codsanayo
maamulada iyo wasaaradaha iyo ciddii kasta oo ay khusayso arrintaani in ay sameeyaan gurmad oo u gurmadaan dadka iyo dunyada isku tabaaloobay. Waxaan kaloo codsanayaa in dalka xoolihiisii haba abaarsanaadee hadda in badan baa nool ma wada dhiman, in loo sameeyo dadaal dheeraad ah oo la baaro waxa lagu daweynayo oo fayadhowr loo sameeyo iyo kontarool dheeraad ah. arigan oo isugu jira jar irmaan aaran iyo qoorarba inta aysan baqtiyin ma ay qalan karaan dadku oo neefka ariga ugu booran ciidda leh horteeda ayuu ku baqtiyayaa. intii ay warbaahinta dawladda Puntland ku guda jirtay booqashadeeda godobyar iyo diyaarinta barnaamijka tabiyaha TV-ga waxa iska soo daba dhacay baqtiga ari cusub ay waldaaminayaan rag caruur iyo haweenba kuwaas oo kamid ahaa kuwii gabranaa xiriyahooda ama xaafadaha halka kuwa geedaha ku hoos jirana marka ay baqtiyaan lagu gubayay bartooda. gudoomiyaha deegaanka godobyar iyo qaar kamid ah gudiga deegaankaasi ayaa u mahad celiyay maamulka iyo gudiga gurmadka abaaraha degmada Xarfo oo booqasho ugu tagay isla markaana la gubay xoolihii qaar kamid ah. sidoo kalena waxa ay reer Xarfo ku deeqeen 5 booto biyo oo ah taageeradii ugu horeysay oo la gaarsiiyay dadka ay xooluhu dhaafeen. waxaana gudiga iyo waxgaradka deegaanka codsadeen in si degdeg ah loogu soo gurmado maadaama ay xaalad la soo daristay. halkan waa tuulada godobyar dhibta ka dhacday halkan oo arigii reer godobyareed hadeer uu marayo 500 oo neef dhimashadu waxa kalena ay hadeer ku daba jiraan sida ay calaamad muuqato ilaahay baa naftooda haya dadkii awalba abaar haysatay haddana arintaas dhacday annagu hadda ma cadeyn karo inuu teamkii ka socday gobolka Nugaal oo noo yimid oo xanaanada xoolaha talaalay suntiisi inuu u leeday laakiin waxaan meesha ka dhacay dhaawac weyn oo rabaaniya musiiba waxaan ugu baaqnaa wasaaradda caafimaadka oo Puntland xil baa ka saaran wasaaradda xanaanada xoolaha ee Puntland xil baa ka saaran inay u soo diraan dad ummad baaraan inuu sun tahay iyo in sabab kala dhacday ayaga xaqiijin kara dadka reemiyiga oo xoolaha haystay oo xoolihii arigii ka baaba'ay mana baari karaan waxaana dhici karta inay yimaadaan xaalado caafimaad darro ariga baqtiyay oo loo taag waayay oo sidii loo gubayay meel kastana hore ka sii soconaya mar labaad iyo mar saddexaad wasaaradda xanaanada xoolaha ee Puntland waxaan ugu baaqaynaa inaysan arintan ka aamusin ay qayb libax ka qaataan. waa tahay ma noo sheegi kartaa tirada guud ahaan qoysaska xooluhu dhaafeen ee haatan u baahan in loo gurmado? ilaa 10 qoys baa jirta oo aan hal neef u harin baa jirta waxa jirta kuwa uu kala baran yahay waxa jirta kuwa uu gabran yahay halka wariye indhahaaga ku aragtay sawirka waadi ka qaaday mid qarsoon ma ahan marka sidaas aan ugu baaqnaa dhammaan dadweynaha Puntland arinta halka ka dhacday noo yimid oo na soo booqday degmada Xarfo maamulka degmada Xarfo team ka socdo gudoomiyihii degmada Xarfo hogaaminayo waa cidii ugu horeysay oo noo timaada oo na soo booqata aad baan uga mahad celinaynaa dadka kale oo aan ka tirsanahay gobolada kalena waxaanu ka codsanaynaa inay dadkan awalba abaarta 2 sano haysatay haddana hantidii yareed ay haysteen ay dhaaftay inay ka soo gacan ka geystaan oo soo gurmadaan si degdeg ah. waa dadkii u horeeyay oo noo yimaada oo hawsha nagala qayb gala oo ka yimaada degmada Xarfo godobyar oo dhawaan ka tirsanay degmada Puntland wax nooga yimid oo maamulka ama jiraanin iyo culimada iyo ganacsatada midna
hawshaasu aad bay macnaha aan annagu ugu murugoonnay waxaan codsanaynaa hadda dadkaas ilaa 10 qoys baa arigoodii ka baaba'ay intii kaleetana waa sii baaba'ayaa waxaan codsanaynaa in loo keeno takhaatiir baadha bal waxa kan waxa ay yihiin xoolaha hadda jiranoo haray iyo gurmud in lala soo gaaro dadka 10 qoys oo hadda waxeedu ay ka dhammaadeen iyo bakhtiga kan anagu aan maaro weyn gaadida aan ku gurno cabsida ugu badan ee deegaanka Godobyar haatan ayaa ah waxyeelada caafimaad darro ay u geysan karaan bakhtiyada hareeraysan daafaha magaalada iyo kanaaliyada barkaduhu u maraan dadka deegaankuna ma haystaan isku rogooyin ama gaadiid kale oo isaga fogeeyaan bakhtiga isla markaana meel fog ugu gubaan waxa ay dadku bakhtiyada ku gubayeen baliyada ama goobaha ugu badan ee yaalaan ariga bakhtiga hase ahaatee waxay u baahan yihiin in loo gurmado isla markaana loo diro gaadiid si bakhtiga loogu gubo goobo ka fog magaalada haddii ay caawa timaado raxmadda alle oo roob la helo halis adag ayay ku jiraan dadkaasi oo bakhtigii la gubay ama mid aan la gubin ayaa u gelaya barkadaha mana dayn karaan oo waa dad iyo xoolo muddo isku dul abaarsanaa daawadayaal ilaa haatan ma cadda sababta dhabta ama xanuunka aafeeyey xoolahan balse dadka deegaanku waxa ay ku andacoonayaan oo noo sheegeen inay waxyeeleeyeen dawooyin lagu duray xoolaha ha ahaatee mas-uuliyiinta wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa dadaal adag ugu jira xaqiijinta xanuunka dhabta ah ee xoolahan aafeeyey xubintii barnaamijka tabiyaha TV-ga dowladda Puntland toddobaadkan taas ayaan ku soo gabagabeynayaa waa anigoo guuleysaaji jaamaca haatana dib idin kugu celiyo khadra iyo qaybihii kale ee barnaamijyadeena